allaha u naxariistay marxuum Dr. Cabdirashiid Axmed Guuleed oo loo yaqaanay Cabdirashiid Sumal waxa uu kamid ahaa murashaxiinta golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex uga sharaxnaa xisbiga mucaaradka ee UCID waxaana uu ku soo baxay liiska rasmiga ah ee soo saareen guddiga doorashooyinku astaantiisuna waxay ahayd xeero waxa uu geeriyooday bil iyo 2 maalmood ka hor doorashadii dhacday 31 bishii May ee sanadkani 2021 haddaba sida ku cad qodobka 17aad ee xeerka guud ee doorashooyinka Somaliland ee xeer number 19 farqadiisa 7 haddii mid ka mid ah murashaxiinta golaha wakiilada ee xisbiyada siyaasaddu uu geeriyoodo ama iscasile kadib marka la soo gudbiyo liiska murashaxiinta waxa xisbiga ay khusaysaa uu xaq u leeyahay inuu soo bedesho 30 maalmood ka hor taariikhda cod bixinta sidaasi darteed xisbiga UCID waxa uu diyaariyay in injineer Maxamed Haruun Maxamed uu noqdo xubinta xisbigooda u bedeli lahayd booska murashaxnimo uu baneeyay marxuumka geeriyooday balse sida xoguhu ay noo sheegeen xisbiga UCID ayaa dib uga dhacay in xubintaasi ay u gudbiyaan guddiga doorashooyinka waqtigii sharcigu u ogolaa waxaana liiska murashaxiinta ee xisbiga ee golaha wakiilada gobolka Maroodi Jeex ku soo baxay magaca marxuumka geeriyooday waxaana la yaab maalintii cod bixinta marxuumkaasi geeriyooday bil ka hor ay u codeeyeen 2258 qof oo cod bixiyaala sida ku cad natiijada hordhaca ee guddiga doorashooyinku ay xalay shaaciyeen waa markii ugu horeysay taariikhda Somaliland qof dhintay ay dad u codeeyaan doorashadii madaxtinimada ee dhacday bishii November ee sanadkii 2017 ayaa waxa soo baxday dacaayad ahayd inay codeeyeen dad dhintay laakiinse si xaqiiqa ayaa doorashadani waxa loogu codeeyay qof geeriyooday